بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. وبعد، إلهي بمهد له إله سبحانه وتعالى إنه وافجيي إنه دري إنه سخري إنه عاونه وإنه دبت لقى يبصرنه dadkeena dhibaataysan qayb kasta oo bulshada ka mid ah. halkan aynu maanta joogno waa xarunta dhimirka ee macruuf qaybteeda dumarka. waxaan markaa halkan xamdiga Ilaahay iyo mahadnaqa Ilaahay kadib uga mahadnaqayaa anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka samafalka ee macruuf xarunta الرحمة خيريغا ayaan halkan uga mahadnaqayaa iyo gudoomiyaheeda Sheekh Cabdallah oo runtii garab taagan mar walbaba sidii ay ugu qaban lahaayeen ay u caawin lahaayeen ay uga qaybsan lahaayeen dhibta haysata walaalahooda xanuunsanaya meel kasta oo ay joogaanba. dhakhtar bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay meel waasac oo fariistaan, meel nadiif ah oo farabadan, waxay badan u baahan tahay. marka waxaan leenahay baaqa aan u jeedinaynaa dadweynaha iyo dadkeena aan u jeedinaynaa waxa weeye in aynu wada ka soo qayb galno, dhammaan ka soo wada qayb galno meelaha lagu hayo waliba dadka aad u jilicsan leh ee ay dumarku hadalay meeshan khaas waxa uu dumarku khaas tahay. marka waxaan leenahay qaybtan aan ka soo qayb qaadano, meel walo lagu hayaba aan ka soo qayb qaadano. marka waxaan leenahay dadkeen walaaladeen halkan ku haya muddo dheer bay ku hayeen, marka dhowr sano ay maraysaa, dhowr sano alxamdulillah rabbi dad badan Ilaahay ku caafiyay. waxaan ognahay qofku inuu hayn karin qofku xanuunsaday ma hayn karo. marka waxaan leenahay qof hadduu hayn karin qof ka xanuunsaday ama laba qof ka xanuunsaday ama saddex qof ka xanuunsaday inuu hayn karin, waxaan leenahay waynu ognahay oo marka qofku xanuunsado oo xaaladdiisu ku adkaato waan sidii faraha ka qaadna. marka faraha ka qaadnana waxay galaan suuqay galaan, suuqa marka galana waxa ugu horeeya suuqa ugu horeeya jaadkii dibjirkii intaas oo wax oo dhibaataysan ba suuqa ugu horeeya qofka dumarka way meesha halka ugu jilcsantay qofka dumarka marka xanuunsato marka dibadda loo sii daayo dibadda suuqa gasho xaaladda ay ku sugantay wana rag iyo dumarku is dhaamaan. ninka waxa laga yaabaa inaad ay karto isagoo meel aad ka jiifa, laakiin qofka dumarka marka dibadda u baxdo xaaladda ay ku sugantay waan ognahay. marka walaal waxaan leenahay jamciyadan ama hadii la idmaayo goobtan ay macruuf gacanta ku hayso, rag iyo dumarba gacanta ku haysa, laakiin waxaan aad soo caawineynaa dadka ay waayo ragga ilaa 40 bilaash hayaan, dumarkuna gabigooda bilaash iyaga caawi, iyaga wax walba ka bixiya, iyaga hadii la idma hugooda iyo cuntadooda iyo caafimaadkooda intaba iyaga bixiya. marka waxaan leenahay waan isku garab taaganahay, anagu ku garab taaganahay hawsha oo la qabanay oo la garab taaganahay dadkan waxaan ugu baaqnaa dhammaan si soo garab taagan, waayo waxaad moodayeen dadkeenu ka dhiga adeegeen, waayo waxaan leenahay muddada ay furayd lama soo xidhiidhin, waayo waxyaalaha ugu badan ee aad uga cabanaya waxa weeyaan dhinac walba markaad eegto, xag walba markaad eegto. marka walaalayaal waxaan leenahay baaq waxaan jeedinayaa dadweyne gudaha iyo dibadda dadka waxaan leeyahay walaalayaal haddii la idmo dadkeena aynu hoos u eegno, dan yarteena aan caawino, waayo haddaynu dan yarteena caadin Ilaahay baa noo xariisanaya. dadkeena dan yar bay u badan yihiin, dhibaato badan bayna haysataa, duruuf badan baynu ku noolahay, aynu is caawino gudaha iyo aan iscaawino sheega yaranu bixin wax walba inoo qabanaya. marka waxaan leeyahay aynu caawino macruuf jamciyada raxmana waxay u taagan tahay wixii ay gacanta soo galay inay gacan aamin tahay oo u dhiibayso hadii la eedmay dadkooda dhibaataysan ee hadday noqoto agoon iyo hadday noqoto danyar iyo hadday dhinac walba noqoto. waxaan leeyahay bisha Ramadaan iyo ayaamkan khayrka badan ee 10kii u dambeeyay ku jirnaa ee khayrka badan ku jirnaa, waxaan leenahay waxa bixinaysa wax weyn sakata fitrida bixiya halka